sanadkan 2026 mandaqada geeska Afrika ayaa martigelisay loolankii ugu adkaa ee siyaasi ah ee ka dhaca mandaqada geeska Afrika. Arrintu waxay salka ku haysaa dekedaha, marinada ganacsi iyo awoodaha caalamiga ah. Djibouti waxa suurtii qiyaamo ku noqday aqoonsiga Somaliland iyo dekeda Berbera. Jamhuuriyadda la aqoonsaday ee Somaliland waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa marxaladda siyaasiga ah ee adag ee ka socota geeska Afrika. Jamhuuriyaddu waxay 1991 la soo noqotay madax bannaanideedii. In ka badan 35 sanadood oo aqoonsi la'aana waxa ka hirgelay Somaliland dowladnimo, nidaam kala dambayneed, dastuur iyo shuruuc. waxay samaysatay ciidamo kala duwan oo guta waajibaadkooda dastuuriga ah. Sidoo kale waxay samaysatay lacag iyo dhaqaale ay ku maamusho nidaamkeeda dowladnimo. xasiloonida ka jirta jamhuuriyaddu waxa ay noqotay mid suurto gelisay in indhaha caalamku ay si dhow ula socdaan. wax kasta waxay isbedeleen markii Israa'iil ay aqoonsatay jamhuuriyadda Somaliland. aqoonsigu wuxuu abuuray hadal hayn ballaaran oo gobolka ah. waxaanu calaamad u ahaa isbedelka weyn ee ku yimi miisaankii iyo miiqaamkii dowladnimo ee Somaliland. qaar badan oo ka mid ah jilayaasha caalamku waxay bilaabeen inay dib u qiimeeyaan mowqifkooda. shirkadaha shisheeye iyo dowladaha qaar waxay kordhiyeen iskaashiga dekeda Berbera iyo iskaashiga amniga. aqoonsiga Somaliland waxa ka dhashay falcelin kala duwan oo ka timi wadamada jaarka. Soomaaliya waxay si weyn uga hortimi aqoonsiga Somaliland, balse waxba kama bedelin arrintaasi. Ethiopia oo ah dal guun ah oo ay jaar yihiin Somaliland waxa uu si dhow ula socdaa isbedelka mandaqada ku yimi iyo aqoonsiga Somaliland. Djibouti waxa uu ku noqday aqoonsiga Somaliland suurtii qiyaame. shacbiga Somaliland iyaga oo mid ah waxay si kaliya laaba u soo dhaweeyeen aqoonsiga Somaliland ay ka heshay Israa'iil. waxay madaxweynaha qaranka iyo xukuumadaba ku barbar istaageen tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee qarankan guusha ay ugu soo hooyeen. xisbiyada, siyaasiyiinta, haldoorka iyo waxgaradka Somaliland waxay mid u noqdeen difaaca qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland.